halkani waa Gaacir Media Tube. barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube oo aan idinkugu soo gudbino mar walba arrimaha sayniska, teknoolojiyadda, difaaca, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo wixii la midka ah. haddaba maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wixii cusub ee wararka ee Gaacir Media Tube laba arrimood. kow waa xisbiga shuuciga ee talada dalka Shiinaha haya ee shirkiisii 20aad ee ka furmay magaalada Beijing, kaasoo caalamka oo idil ay isha ku hayaan warbixin ku saabsan. arrinka labaad, Talyaaniga oo walaac ka muujiyay tirada shacabkiisa oo si yaraanaysa ama dhalmayarida la soo daristay shacabka dalka Talyaaniga. warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa. haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u gudagelin warbixinadaas, fadlan share, like iyo follow dhaha page-ka iyo channelka Gaacir Media Tube ee aan ku kala leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ka. waa mahadsantiin. aan ku bilowno. xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee 73 sano maamulayay dalkaas ayaa maanta ugu furmay shirkiisii sanadlaha magaalada Beijing. madaxweynaha Shiinaha Mr. Xi Jinping oo shirka furay ayaa sheegay in shirkan sanadlaha ee xisbiga shuuciga dalkiisa uu socon doono muddo 7 ah. shirka ayaa la filayaa inay kasoo bixi doonto arrimo siinaya Shiinaha kaalin cusub inuu ku yeesho masraxa siyaasadda adduunka, taasoo arrimaha lagu falanqeynayo shirkan ay ka mid yihiin xiriirka dibadda, ganacsiga iyo shuruucyo la xiriiro difaaca. in go-aamo laga soo saari doono ayaa la rajeynayaa. madaxweynaha Xi mar uu khudbad 2 saacadood socotay ee uu ku furay shirka wuxuu ka sheegay sharciyo iyo shuruucyo kala duwan ee Shiinaha uu leeyahay in dib u habeyn lagu sameyn doono. sidoo kale madaxweyne Xi Jinping ayaa khudbadiisa xoogga ku saaray arrimaha ay ka midka yihiin kuwa arrimahan oo saacado dheer uu kaga hadlay ama waqti uu siiyey. waxaa ka mid ah shuruucda la xiriirta baabi'inta koronaha ama zero corona policy, arrinta Taiwan, shuruucda isu dheelitirka dhalmada carruurta iyo dhaqaalaha, arrimaha ganacsiga, arrimaha isbeddelka cimilada, diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga. Shiinaha oo sheegi jiray mar walba Taiwan inay tahay qayb ka mid ah dalkiisa ayaa haddana madaxweyne Xi mar uu maanta khudbad uu ka jeedinayay shirka 20aad ee xisbiga shuuciga ee ka furmay Beijing ayuu ka sheegay in ayaga iyo Taiwan khilaafka kala dhexeeya ay ku xalinayaan ama ay rabaan qaab nabadeed. shirkan 20aad ee sanadlaha ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha ayaa la rajeynayaa in xukunka uu kordhin doono ama xukun kordhin ay u sameyn doonaan madaxweyne Xi. haddii xisbiga shuuciga arrinkan ogolaado, madaxweyne Xi wuxuu noqonayaa madaxweynihii labaad ee muddo dheer maamula Shiinaha, kaasoo ku xiga Mao Zedong. waa madaxweynihii koowaad ee muddo dheer maamulaya. marka haddii Xi Jinping loo ogolaado ama xukunka ay u kordhiyaan xisbiga shuuciga, wuxuu noqonayaa madaxweynihii labaad ee muddo dheer maamula dalka Shiinaha. madaxweyne Xi oo haatan jira 69 sano ayaa wuxuu ku dhashay magaalo madaxda Shiinaha Beijing. haddana laga soo bilaabo sanadkii 2012 ilaa hadda ayuu hoggaanka u hayaa dalka Shiinaha isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda dadka Shiinaha. tirada dadka shacabka Talyaaniga oo yaraatay. waxaa la soo sheegaa in Talyaaniga ay dhibaato soo wajahday kadib tirada shacabka Talyaaniga oo hoos u dhac ku yimid. inkastoo Talyaanigu marka la eego Yurub sida Ruushka, Jarmanka, Faransiiska, Ingiriiska, tirada shacabka kaalinta 5aad ayuu kaga jiraa, haddana waxaa la sheegayaa in dhowaan hoos u dhac tirada dhalashada oo tirada dadka Talyaaniga ay hoos u dhac ku timid. sida waaxda xog ururinta Talyaaniga ay sheegtay, haddii hoos u dhaca tirada dhalashada qaabkan uu hadda kusii socdo 50 sano
konton sano kadib tirada shacabka talyaaniga oo hadda ah 60 milyan waxa uu noqonayaa ilaa iyo 47 milyan inuu hoos u dhacayo ayaa warbixinta lagu sheegay. Tirada dadka talyaaniga ku dhalanaya haddii siday tahay ku socoto, talyaanigu wuxuu weynayaa 12 milyan oo shacabkiisa ah. Talyaaniga waxaa loogu baaqay inuu kordhiyo tirada dadka u dhalanaya ama tirada dadkiisa. Ilaaha wax badiye. Haddana warbixinta ayaa ku baaqday in talyaaniga tirada dadkiisa inuu badiyo, gaar ahaan dadka dhalanaya inuu kor u qaado ayay warbixinta ugu baaqday. Tirada dadka dhalanaya ama tirayarida la soo daristay talyaaniga ayaa lagu sababeeyey 1 dadka waaweyn oo cimrigoodu dheer yahay ama gabow ba'an inuu ka jiro talyaaniga ayaa la sheegay. 2 sicir bararka nolosha. 3 isbedelka cimilada. Warbixinta ayaa lagu in sanadka 2050 tirada shacabka talyaaniga noqonayso 54 milyan. Sanadka markii la gaaro sanadka 2070 tirada shacabka talyaaniga wuxuu ka hoos mari doonaa 47 milyan. dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eeg barnaamijka wixii cusub ee Gaacer Media Tube. barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadgeno.